waftigan ka socda dalka Masar uu hogaaminayo safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya oo lagu magacaabo Taymar Safwad Al-Mahdi oo ka soo kicay caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Kanoke ee magaalada Garowe waxaana si diiran u soo dhaweeyay wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda Puntland iyo mas'uuliyiin kale safiirka oo salaan iyo soo dhaweyn la qaatay mas'uuliyiinta isugu jira wasiirada iyo xildhibaanada ayaa kadib loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Puntland halkaas oo kulan rasmi ah kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka ahna siyahayaha xilka madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey kulankaas oo muddo kooban socday isla markaana saxaafadda dibadjoog ka ahayd ayaa markii soo dilaaday waxa saxaafadda si wadajir ula hadlay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo ambassador Taymar Safwad Al-Mahdi wada hadal baanu yeelanay runtii waxa la wixii aanu ka wada hadalay haday tahay amniga caafimaadka waxbarashada korontada ganacsiga waxaanu ka wada hadalay wax kasta runtii waxaan isla qaadanay in baahidii meeshii taalo in xiriirkii ganacsi ee soo jireenka ahaa ee Puntland iyo Masar loo baahan yahay mar labaad in dib loo bilaabo iyaguna waxay u yimaadeen laba shay dhinaca horumarka inay runtii ka hadlaan iyo dhinaca caawimada gargaarka bini'aadamnimada ee dadka abaaruhu ay afeeyeen اخواتنا هنا في اقليم بونتلاند وزي ما احنا قلنا في علاقات تاريخيه تجمع بين مصر واقليم بونتلاند خاصه خيئة بونتلاند maanta halkan waxaan la joognaa walaalahan reer Puntland waxaanu xoojinaynaa xiriirka u dhaxeeya Masar iyo Puntland khaasatan xiriirkii u dhaxeeyay xilligii faraaciinta Soomaaliya iyo Masar si aan u xoojino xiriirka ganacsi halkan waxaan ku maraynaa wafti heer sare ah oo Masri ah waxaan ognahay xaaladaha abaareed ee haysta shacabka Soomaaliyeed waxaan dareensanahay dhibaatada haysata qoysaska Soomaaliyeed xaaladaha bini'aadanimo ee u geysteen abaarihii ka dhacay Soomaaliya waxaanu gacan ka geysan doonaa sidii wax loogu qaban lahaa dadkan dhibaataysan Soomaaliya iyo Masarna waxay iska kaashan doonaan wixii aan isla qaban karno labada dhinac waxaan si gaar ah uga xunnahay dhibaatooyinkii abaaruhu ay u geysteen qoysaska Soomaaliyeed Ahmed Sham telefishinka caalamiga Home Cable Garowe.